السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن waxaynu ku baranaynaa set wuxuu yahay. Okay, setku marka waa built in data type, waa data type marka Pythonka la socda, waana collection sida listiga iyo tubalkan hore usoo aragnay. Marka isagu ma ogola duplicates. Marka waa unordered oo index ma leh, waana unique elements ayuu ka kooban yahay oo ma ogola duplicates. Marka inta badan waxaa loo isticmaalaa sets are useful when you need to store multiple items. Markaad rabto multiple items inaad store garayso oo collection key without duplicates, laakiinse aadan rabin inaanay duplicates ku jirin, waxaana aadan kaa gelin ama aadan keergaraynaynin the order of the elements, indexka aadan keergaraynaynin. Marka index male isagu. Marka unordered micnaheedu waxa weeyaan the elements do not have a fixed position. Marka position male, index 0 iyo 1 iyo 2 iyo male. Unique elements, no duplicates values are allowed. So ma ogola matalan haddaynu magacyo ku save garaynayno laba magac isku mid inaad gelisa ma ogola. Waana mutable micnihiisu waxaanu horaan usoo aragnay waa changeable. Marka elements waynu ku dari karnaa, waanan ka saari karnaa. Marka set maran haddaynu rabno inaynu samayno waxba ku dhex jirin, haddaynu doono my set baynu odhanaynaa is set, saasaynu u samaynaa marka set maran. Haddaynu dhahno print my set, waxaynu arkaynaa inaynu samaynay set maran. haddaynu list haysano matalan okay, listigana rabno inaynu set u bedelno, marka my setkii ayaynu wax dhex gelinaynaa my, haddaynu run dhahno waxaad arkaysaan setka waa kaas. Curly brace ayuu isticmaalayaa meeshii aynu listing ka isticmaalaynay square bracket, tubalkana ka isticmaalaynay parenthesis. Okay, marka haddaynu rabno hadda inaynu samayno set magacyo ka kooban names, waxaynu oran karnaa waxaan ku darayaa magaca Axmed ayaan mar labaad ku darayaa si aad u aragta inaanu duplicateska ogolayn. marka waxaanu haysanaa magacyo, haddaynu printer garayno markaa waxaan arkaynaa inuu Axmed hal mar keliya uu listiga ku jiro oo aanu markaa duplicate-kii uu ka saaray, Axmedkii kale uu ka saaray meesha. waxaan kaloon arkaynaa markaan samaynay setka halkan Maxamed ayaan ku bilaabay, laakiinse halkan waxaa ugu horeeya Axmed, waxaa ku xiga Maxamed, Cusmaan oo ugu dambeeyey halkan ayuu geliyey. marka setku ma leh order, ma leh indexna ma leh. mar labaad haddaynu rangarayno waxaad arkaysaa hadda Maxamed buu ku bilaabay, Cali baa ku xiga, Axmed. sidaa marka waxaad ku arkaysaan inaanu order lahayn. waxaynu markaa fahamnay duplicateskan uu ka saarayaa oo Axmed laba mar halkan ku haysanay, mid unbuu keliya ayaa ku jira setkii, orderna ma leh. maadaama setku yahay collection waxaynu samayn karnaa markaa looping ayaynu ku samayn karnaa for name in names. marka Maxamed, Axmed, Cusmaan, Cali, waxaad arkaysaa inaanu orderka siduu doonu ka dhigayaa, laakiinse maadaama uu set yahay for loop ayaynu isticmaali karnaa si aynu markaa mid mid u printer garayno. haddii aynu rabno inaynu magac kale ku darno ama item setka ku darno waxaynu isticmaalaynaa functionka add. hadaynu markaa print dhahno waxaynu arkaynaa meeshu doono ayuu gelinayaa markaa magaca Sahra. Sahra halkaas uu geliya hadda. marka add ayaa la isticmaalaa marka lagu darayo an item. haddii aynu rabno inaynu check garayno item inuu ku jiro setka waxaanu isticmaalaynaa in. marka inkan collectionko dhan baa loo isticmaali karaa, ama list ama table wuxuu doono ahaado. waxaan oran karnaa if Axmed in names, hadduu Axmed names ku jiro waxaanu print garaynaynaa doono yes baan iska oranaynaa. marka haddaynu ran dhahno Axmed wuxuu jiraa ayuu oranayaa yes. marka waa case sensitive, siduu Axmed u qoray meel aduu qortaa. haddaynu aydaas lower case ka dhigno
ma helayo markaa home print garaynayo waxaan oran karnaa else haddii aad weydo waxaad print garaysaa no print garee marka hadda no ayuu noo print garayn doonaa Axmed ma helin Axmed haddaan rabno inaan jagaray inaanu ku jirin waxaan oran karnaa if Ahmed not in if Ahmed is not in names print yes marka Ahmed kuma jira hadda isagoo lowercase marka yes ayuu print garaynaya isteen dhahano Ahmed oo capital sidoo ugu jiro marka not inkaas false ayuu noqonayaa else ayuu marka print garaynaya wuxuu oranayaa no haddii aynu rabno inaynu marka item ka saarno remove iyo discard iyo pop saddexda yaa la isticmaali karaa marka waxaan karnaa names dot remove Ali for example marka haddaynu hadda print garayno Ali uu ka saaray meesha waxaa soo hadhay keliya Cusmaan Maxamed iyo Axmed waxaan kaloo isticmaali karnaa okay kan waa case sensitive saan sheegnay marka haddii aan lowercase l ka dhigo error ayaa soo baxaya marka remove dhibaatadiis waxa weeyaan haddaanu itemka ku jirin aad delete garaynayso error ayaa soo baxaya waan baran doonaa errorka sida loola macaamilo laakiinse error ayaa soo baxaya waxaan isticmaali karnaa discard hadduu waayo elementiga error ma soo tuurayo muuse delete garayn errorna ma soo tuurin laakiin hadduu elementiga helo sida imika oo kale wuu delete garaynayaa marka discard iyo remove farqa u dhexeeya waa labadaas remove haddaanu itemka hadda item meeshaan ku jira haddaynu dhahno matalan delete garee discard wax error ma soo baxayo laakiin haddaynu remove isticmaalno error ayaa soo baxaya sababtaasay muhiim u tahay markaa hore haddaad remove isticmaalaysa waa inaad check garaysaa marka inaad dhahdaa if deeqa in names kabacdi remove markaa marka if conditionkaas ayaad u baahanaysaa markaad remove isticmaalayso wax error hadda ma soo bixin sababtoo if conditionkaas aynu isticmaalnay marka taas waa muhiim discardka laakiin uma baahnid waxaan kaloo isticmaali karnaa pop marka element ayuu delete garaynaya laakiin ma garanaysa midku delete garay haddaad rabto inaad ogaato markaa waa inaad variable kala samaysaa inaad dhahna matalan x is names dot pop marka waxaan ogaanaynaa haddaan rabno inaan ogaano elementiga uu delete gareeyo waa inaan markaa x print garaynaa haddaad doonto x waad bixin kartaa haddaad doonto deleted name waad bixin kartaa muhiimaddu waxa weeyaan waa inaad variable ku assign garaysaa popka marka wuxuu kusoo celinayaa Axmed ayuu hadda delete gareeyey hadaynu dhahno print names waxaad arkaynaa kolba midku doono delete garaynaya inuu run dhahno hadda wuxuu delete gareeyey Cusmaan marka intaas soo hadhay mar labaad haddaan run dhaho wuxuu geliyay haddana Cusmaan ayuu delete gareeyey intaas soo hadhay haddana Cali ayuu delete gareeyey marka waxay ku xidhan tahay popka midku doono ayuu delete garayn karaa haddaad rabto laakiinse inaad mid gooniya specific name inaad delete garayso waa inaad ama remove ama discard isticmaashaa haddii aynu rabno setka inaanu empty ka dhigno waxaan isticmaalaynaa names dot clear function kaasaan isticmaalaynaa haddaynu ka dhahno print names setkiyo empty ayuu noo print garaynaya laakiin haddaynu rabno inaynu delete garayno oon memory oo dhan ka saarno del ayaynu isticmaalaynaa marka haddaynu dhahno iminka del names memory oo dhan uu ka baxay print garay haddaad dhahdo error ayaa soo baxaya waxaad arkaysaa marka wuxuu leeyahay names is not defined yani waxa weeyaan errorka names variableka names aad rabto inaad print garayso maba jiraba is not defined haddii aynu rabno laba set inaynu isku darno marka nameskii names 1 ayaan rabnaa inaynu ku darno names 2ga waxaan ranaynaa update names 2
marka names2 names1 kii aynu waxaynu ku darnay names2 haddaynu dhahno print names1 waxaa inoo soo baxaya magacadii oo dhan iswada wata oo hal set ku wada jira sidaan hore usoo sheegnayba setku waa mutable marka waxa laga bedeli karaa waxna waa lagu dari karaa laakiin sidaad rabto inaad ka dhigto immutable unchangeable midaan waxba laga bedeli karin waxaad isticmaalaysaa wax la dhaho frozen set marka haddaynu dhahno names is equal to frozen set waxaynu arkaynaa markaa set ayaan hadda samaysanay haddaan dhaho print names waxaynu haysanaa set laakiin kii hore wuxuu kaga duwan yahay kan waa frozen marka waxba laga bedeli haddaynu dhahno names dot add ma ogola marka wuxuu haddaad rabto inaad ka dhigto immutable unchangeable waxaad isticmaalaysaa frozen setkaas laakiin weli for loopki waa la isticmaali karaa marka set baad haysataa laakiinse waxaanu ka dhignay unchangeable frozen ayaanu ku samaynay setka waxaa kaloo loo isticmaali karaa xisaabta mathematical operations union of sets haddaynu rabnayna matalan laba set haddaynu kasoo qaadano elements ku jiro dhan laakiinse distinct ah unique ah waxaynu isticmaalaynaa union marka the union operationku on two sets or two sets a isticmaalayso produces a new set waxaad kusoo saarayaa set cusub marka setkaas containing all the distinct elements oo ka kooban markaa elementskii ku jiray labada set oo laakiin duplicate lahayn distinctiga ah oon duplicate lahayn marka from both sets ayuu kasoo saaraya halkan waxaynu haysanaa the red green iyo blue halkan waxaynu haysanaa yellow red iyo green red labadaba set buu ku jiraa laakiin markaan unionka isticmaalno mar keliya ayuu noo soo qaadaya marka blue green red orange yellow ayuu noqonaya setka cusub markaad rabto inaad isticmaasho waxaad isticmaali kartaa functionka union ama waxaad isticmaali kartaa barkaas tusaalaynu hadda arkaynaa halkan waxaynu haysanaa setkii haddaynu xataa halkan orange kusii darno matalan waxaan arkaynaa orangega mar keliya inoo soo qaadaya redkii orangega mar keliya inoo soo qaadi doonaa haddaynu dhahno print a oo setka ugu horreeyay ah union b run waxaynu arkaynaa orange mar keliya inoo soo qaaday green yellow blue redkiina mar keliya inoo soo qaaday waxaan kaloo oran karnaa print a dot union red yellow blue orange iyo greenki ayuu noo soo qaaday marka unionka habkaasaa loo isticmaalaa habka ku xigaynu arkayno waxa weyn marka intersection of sets the intersection operation of two sets produces marka intersectionkaasi operationkaas wuxuu ku soo saarayaa a new set cusub containing only the common elements oo ku haynaya elementska labada listigaba ay common ku yihiin so waa elements ku jira labada dhinacba from both sets marka la isticmaalayo isagana waxaa la isticmaalaa ama intersection ama waxaa la isticmaalaa ampersandkaas isna tusaalaynu arkaynaa marka halkan waxaynu haysanaa labadii set a iyo b markaynu print garayno marka intersectionka wuxuu inoo soo saarayaa waxaa common halkan red iyo red ee halkan ku jira orange iyo orange labadaas keliya ayuu inoo soo saarayaa hadaynu dhahno marka print set a ampersand b orange iyo red keliya inoo soo saaray waxaan oran karnaa a dot intersection isla meeshii marka wuxuu inoo soo saarayaa elementska labada dhinacba ku jira the elements which are in common in both sets okay challenge-gan aan idin weydiinayaa marka intaad joojisaan videoga isku day inaad ka shaqaysaan challenge waxa weeye marka remove duplicates in the list below
listigan kalaradan waxaan rabnaa inaan ka saarno duplicate laakiin aan list ku soo celino habkeen uga saaraynaa marka yara joojiya ka bacdina isku daya okay solution hadda arkaynaa marka listigeena haysanaa colors listigan rabnaa inaan ka saarno duplicates waxaan u bedelaynaa hadaynu doono new colors set aynu bedelaynaa sadka markaan bedelno automatically wuxuu ka saarayaa duplicates hadaan hadda print garayno waxaad arkaysaan duplicates ayuu ka saaray laakiin haddana waxaan u baahnay inaanu list ka dhigno marka waxaan odhanaynaa new colors ama colors list ayaan hadda u bedelaynaa marka new colorski hadaynu hadda print garayno marka print colors waxaan arkaynaa marka inuu noqday list ayuu noqday duplicateskiina waan ka saarnay marka waxyaabaha loo isticmaalo sidka waxay ka mid tahay markaad rabto inaad duplicates ka tuurto listi oo kale challenge-ga labaad ee aan rabo inaad isku daydaan waxa weeye waxaa lagu siiyey 3 lists of integers marka la rabaa inaad qorto Python program to find all the unique elements that are common to the 3 lists marka 3 listiga elementiga ay dhammaantood leeyihiin ay common haystaan waa inaad soo saartaa adoo isticmaalaya markaa intersectionkii aan hore u soo aragnay isku daya ka bacdina waxaan idin tusi doonaa solutionka okay imika solutionka aynu arkaynaa waxaan rajeynayaa inaad isku daydeen marka ugu horeysa waa inaan saddexda listiba u bedelnaa set marka hadaynu dhahno matalan set 1 is equal to 1 set 2 waxaanu bedelaynaa list 2 waxaan bedelaynaa set 2 list 3 na waxaanu bedelaynaa set 3 marka listiyadii aynu waxaan wada bedelnay set ka bacdina marka intersectionka aynu eegin hadaynu dhahno print set 1 intersection set 2 comma set 3 waxaasoo intersectionkooda aynu inoo soo saar ka bacdina run dhahno number 5 ayaa common ah in all of the lists so waxaan arkaynaa halkan 5 oo ku jira 5 kale hadaynu laba number oo kale ku darno hadda matalan halkan 5 iyo 10 ayaa inoo soo baxaya marka 5 iyo 10 ayaa saddexda listiba ku jira halkaas aynu ku gabagabeynaynaa waa inoo casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu